odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Sool oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Laascaanood ayaa si adag uga hadlay colaadda ay sheegeen laga dhex abuurayo deegaano hoos yimaada gobolada Sool iyo Nugaal kadib markii kantaroolka waqooyi ee magaalada Garowe loo soo raray deegaanka bixin ee gobolka Sool odayaashan iyo cuqaashan oo amurahaasi ka hadlayeen waxa hadaladoodii kamid ahaa daanu nahay gobolka Sool odayaashoodii waxaanu halkan maanta isugu nimi inaanu halkan ka dirro baaqaasoo ku wajahan cilada ka soo korodhay Garowe iyo maamulka Puntland taasoo ku saabsan dhulka ay soo degeen hadeer gobol wuxuu ugu xadgudbaa waa gardarro weeye gobolka Garowe Nugaal ha ku ekaato xuduudda intii ay lahayd ha ku ekaato haday control dhiganaysa iyo haday dhisma dhiganaysaba iyada wax hore dhulkeeda laakiin waxaanu leenahay controlka la keenay bixin ee ciidamada la istaba dhigay dadka walaalaha ee tolka waa curin colaadeed waxaanu leenahay isimada dhaqanka cuqaasha waxgaradka siyaasiyiinta dadka caqliga saliimka ay ku jiro waxaanu leenahay faroole wuxuu wado waa in la joojaa waxa isaga iyo ina faraweyne boqolka goor iska daba yiraahdeen ee ku hanjabeen waa in la joojaa haddii ay arintaas soo noqoto dadku waa dad walaala waa dad wada dhashay laakiin wuxuu halgamayaa colaadu Garowe iyo Laascaanood dhexdoodu waxayna ku deeqdaan nabad gunimi sida odayaashii iga horreeyay sheegeen arinta ka soo cusboonaatay kantaroolka maamulka Puntland uu dhigay bixin oo ah gobolka Sool waxaanu marka ugu horeysa ugu baaqaynaa shacabka dega gobolka Nugaal Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa niman ku furdooniyaan ku rarin haday xaaladdu faraha ka baxdo Puntland ma jirayso waxa imanaya dadka ehelkee walaalaha ah inay la isaga tago oo dhibaatadu iyaga ay dhex marto arintaas waxaanu leenahay raalli kama nihin salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka gobolka Nugaal waxaanu leenahay qoriga dabka ee kooxda gaari wado ha laga hortago oo ha laga qaado kantaroolka halka la dhigay madaxweynaha maamulka Puntland ee Siciid Deni waxaanu leenahay wixii dabinho ka horeeyay oo la dhigay baa la rabaa in cagaha lagu rido faroole ama kursiga kula fadhiya ama ku ag taagnaadii horuu arrimahan uga shaqeeyay wuuna ku aanbaxay taariikhdeena u gashay waxaanu aad iyo aad ula yaabanahay waxa ka socda Garowe oo duulaanka qaawana oo lagu soo duulayo gobolkii Sool duulaan lagu yahay oo sidoo odayaashii ugu horeeyay sheegeen ba 4 jeer iyo 5 jeer la isku dayay in la qaato xuduudihii ama deegaankii u lahaa gobolka Sool waxa loola yaabo oo la isu dawladeeyo oo shaar dawladeed la isu gashado mana shaqayn mayso inayan suuroobayn waanu ognahay 3 wiil oo yareer baa laga qabsaday oo buundada iska marayo deegaankan u dhashay baa la qabsado la xirto la yiri waa qaswadayaal afduub bay ugu maqan yihiin bada saabka haysta gobolka Nugaal hadda halkan waa la joogaa meel walba waa la joogaa wiil qabsaduu leeyahay waanu tixgelinaa kulli intiraam waanu intiraamaynaa laakiin sidoo waxba intiraami maysaan ha laga xishoodo dadka deegaanka kale waanu ognahay oo qudaartii booca mishiin la soo celiyay oo waliba la aflagaadeeyay arrinkaas waa inaad waa inaad ka waantootaan lagana dul qaadan maayo bixin iyo yoocada waxaad ka wadaan laga dul qaadan maayo tolow ha culeysinina dadka harti colow ha ka dhiginina nabadda waa inaad sidaan u arkayna waa inaad uga shaqaysaan annana waa ka shaqaynaa nabadda idina waa inaad ka oo dalka waynu wada leenahay waynu wada daaqnaa biyaha iyo deegaanta waynu wada joognaa way isku dhex jirnaa nabadgelgeenu isku dhex joog laakiin haddii halkaa wax ka dhacaan la isdhex deganaan maayo daaqna la wada cuni maayo biyana la wada cabbi maayo arrintaa nimanka isimada ah ee Garowe jooga ee reer Garowe iyo shacabkooda waxaan leeyahay annaga haddaad aamustaan waa kula jirtaan haddaad ka hadashaanna waajibkiina gudateen waliban qaran wararka telefishinka Soomaaliya News Laascaanood